galayna MOU asaga kamana bixi karaan rajweynaan ka leenahay marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada qaasatan dhanka aan ka imaado koona tareebta inay dadkan EFP ga taageeraan iyo dhankan Takomaba anakoo u hadlayno ama ku hadlayno afka Takoma ama afka EFP waxaan jecelnahay dhalinyaradoo dhan inay taageeraan oo waxayna dadkan la qaybsano on la fariisano qastan yuko waxa la siiyaa 30% la siiyaa oo budgetka 30% kaas asaga 2013 kii dadkii soo galeen ilaa hadda wax kama hayno mana arag marka waxaan rajaynayaa dadkan 30% ka inaan la qaybsano on MOU wada qorano oo heshiis fiican aan la galno oo si aan ku socotaan aan saasan ku socon aad baad u maasan tahay daawadayaasha telefoonada soo galaya ayaan mar kale fursad siin doonaa iyaguna ay ka qayb galaya dhinaca barnaamijka iyaga hadduu allaha wadil yiraahdo daawade haddaba waadna soo wici kartaa adoo isticmaalaya dhinaca telefoonka fikradihiina aad haddaba inoo soo gudbin kartaan idinkuna inagoo weliba ku guda jirna qaybihii dambe ee dhinaca barnaamijka iyaga bandhiga oo haddaba daawadayaashu iyaguna ay soo gudbin karaan fikradahooda kala gedisan ee ku aadan dhinaca barnaamijkood haddaba idinkuna aad inagala qayb gali kartaan sidaan marka horeba idiin sheegay caawa waxaynu ka hadlaynay arrimaha Mandera iyo weliba sidoo kale dhalinyaradu kaalinta ay ku leeyihiin dhanka jahwareerka siyaasadeed ee muddooyinkii la soo dhaafay ka jiray iyadoo weliba sidoo kale iminkana dhalinyaradu shaaca ka qaadaya inay haystaan ballanqaadyo fara badan oo ku aadan hanaanka ugu wanaagsan iyaguna in wax loogu qaban karo khadadka telefoonada iyo daawadayaasha xiga ee barnaamijka doonaya iyaguna inay ka qayb qaataan ayaan mar kale fursad u siinayaa hadduu aleedmo daawadaha khadka ku jira ayaan siinayaa halo STN halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacday waa Xuseen Sheekh Ali oo joogo Nairobi gaar ahaan Islii Xuseen soo dhawo ku soo dhawo barnaamijka waan ku dhow yahay walaal waxaan ugu horeyn halkaan ka salaamayaa walaalkay Caluur fadhiyo loo fadhiyo si wanaagsan teedi kale waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada hadda u qaban qaabitay shirkan wanaagsan waxaan insha Allah ilaahay aan ka rajaynayaa in waya haye hello wahagaag daawadahaasina inuu khadka ka baxayaan filayaa nasahatee uu dib inoogu soo laaban doono daawadayaasha kale iyaguna telefoonada soo galaya doonayeen sida ay si lamid ah barnaamijka uga qayb qaataan adinkuna daawadayaal wuu idiin furan yahay oo fikradihiina haddaba waad inoo soo gudbin kartaa khadka xiga halo STN hello waayahay waxaan ka xumahay fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad TV-yada ka dheeraataan oo iska gaabisaan daawadayaal daawadaha kale khadka telefoonka soo galaya ayaan isaguna mar kale fursad u siin doonaa ka qaybgalkiisa dhinaca barnaamijka halo STN hello hello STN السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المقعد هل كان نقص وعده علي عبد الله مديركاس وياهي telefoonada waxa idinka goynaya inta badan waa TV-yada aad daawaneysaan fadlan ka dheeraada TV-ga si codkiina si wanaagsan aan ugu maqan loo adinkuna aad barnaamijka uga qayb qaadataan hadduu aleedmo daawadayaasha kale khadadka telefoonada soo galaya ayaan mar kale siinaya fursadooda iyaguna ay kaga qayb galayaan halo STN halo halo السلام عليكم waa Xuseen oo soo laabtay mar labaad Xuseen soo dhawo waan dhow yahay insha Allah taala waxaan rajaynayaa mar haduu dhalinyarada reer Mandera ay bilaabaan waa hagaag Xuseen aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha waan ku soo laaban doonaa hadduu aleedmo iyo ka qaybgalkooda dhinaca barnaamijka hadduu aleedmo iyaguna ay nagala qayb galayaan waa hagaag Ali Nuur marka dhankaagaan siiyo kulankii maanta waxaad ku qabateen Mandera waxaad ku qabateen Nairobi dad badan Mandera idinka sugaya arrinta meesha ka taagan tahay siyaasaduna waa Mandera dhalinyaradii meesha u badan yihiin ay joogaan meenta ay idinka soo eegayaan waa Mandera maxaa idin qorshaysan maxaad isleedihiin Mandera waad ugu qaban weydeen kulankan Nairobi aad ugu soo hormartay sanid hagaag insha Allah waxaan diyaar u nahay maadaama Nairobi ku bilaabnay Nairobi inoo Ilaahay garab galay oo mas'uuliyiinteen dhan maanta aan midownay oo arrintan u soo bandhignay hadda waxaan ku tala jirnaa inaan habeeno ama qabanqaabino safaraan intaan nagoo wada jira Mandera County Youth Alliance la yiraahdo oo isbeeshaday inaan tallaabadaas aan qaadno tuulo walbaba countigeena ku taalo inaan dul istaagi doono
dhalinyarada meesha degan inaan isku keeni doono cid beesha ay tahayba soomaalinimada iyo muslimnimada iyo walaaltinimada inaan isku xiri doono oo annaga noqon doono tiir la yiraahdo ama qabiil la yiraahdo dhalinyaro oo beeshaan iyo beeshaan ahayn ayaan ku tala jirnaa. waxay haddaan leenahay insha allah Mandera waa soo soconaa tolkeena dhan dhalinyaradeena dhan gooni gooni u socod ama beelbeel u socod waxay faa'iido noo tarays ma jirto, meel ayna geynaysna ma jirto. haddii ay khalaafkaas wax taraayo Soomaali weynta dalkeena dhanaa kusoo burburay oo maantana waxaa dalkana si dib u dhis ku sameynayo ama nidaamka maanta socdo soo bilaabay sidii walaalkay sheegay SYL la yiraahdo Somali Youth League oo 14 ruux ka kooban oo wiligoodna qalan iyo buugis tusin ama waxba soo baran waa aragnimadii iyo wax faanimadii la meesha geysay. insha Allah ka badan inaan sameyn doono sheekadan hadda Mandera ka socoto oo brocoley annaga meel u rabna geysanayo ama cid siyaasadda soo gashaba 2,000 kugu iibsanayo xaqaagna markuu soo galay 5 sano kale ku dulminayo in annaga dhalinyaraan wax soo baranay aan shaqo u baahannahay nolol u baahannahay countigeena inaan dan ka leenahay inaan tusno oo xoolaheena ama dhaqaalihii Mandera countiga had Mandera noo geeyay 5 sano kadib sidii hadda la soo dhacay dhibkaasna la dareensiyay dib dambe in ay dhaceenin oo annaga dhalinyarada horta day isbeeshato cid meel wax ka geeni karta ma jirto awood dhan iyo tiirka dhan dhalinyarada yeelan doonto insha Allah ina annaga xoolaheena ama rasmaalka Mandera county iyo waxaan kullu dul istaagi doono waa soo soconaa leenahay tuulo walba waa dul istaagi doona beesh walba Mandera ku nool insha Allah waa isku keeni doona. Mandera nisa loo yaqaano waa meel oo laba xuduud dhaxdeeda taalo dhankan badaxda dhanka xuduudda Ethiopia dhankan kale xuduudda Soomaaliya nidaamkeeda iyo dhibkeeda walbaba insha Allah inaan wax ka qaban doono midoobi doono. aad baad u mahadsan tahay gabagabadii waan soo gaarnay hayaha bal hadda gabagabadaadii markaad adigu eegtay iyo taladaada kugu dambaysa. waxaan dhihi lahaa dhalinyarada reer Mandera ururkan ayaa bilowday. ururkan waxaan rabnaa wixii jecel ama ruuxii jecel inuu kusoo darsamo gacan furan ay kusoo darsamayaan. tan kale waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego dadweynaha reer Mandera nin kastaba dantiisa fiirsanayo waxaan dhihi lahaa halkan dana idinku jirto wax badan baad ka faa'iideysiin wax badan baad aad ii sheeg aad ka qabsan doontiin ururkan aan wadno kusoo biira. aad baad u mahadsantahay Xasan. aniga horta waxaan aaminsanahay inay dhalinyarada maanta horta guul usoo hoyatay waxaana dhalinyarada ku boorinayaa in uu ururkan uu yahay urur dhammaan dhalinyaro walba kasoo jeeda maaragtay NFD gaar ahaan magaalada Mandera uu iska diiwaan gelin kara una u furan yahay kasoo qayb gali kara waayo maanta waan la kulanay hogaamiyaashii halkaas fadhiyay arrimo badan ayaan ka hadalnay mar dhowna waxaan kala qoran doonaa MOU kaasoo maaragtay kala ilaalin doono waayo dhibka jira waxaa waaye waagii hore maan kala seexan jirin MOU annaga iyo hogaamiyada maaragtay hogaaminaya marka inqilaabka badanba ama khilaafaadka badan meeshu ka imaan jiray marka dhalinyarada waxaan leeyahay guul ayaa noo hoyatay guul ayaa noo dhalatay kasoo qayb galkiinana waan sugaynaa mar dhow waan filinaynaa hawshan waa reer Mandera ay u taallaa xagga ragga dhalinyarada oqaalka waxgaradka dumarka kulli kusoo dhawaada waxaana leeyahay hadduu ilaahayna gaarsiiyo August 8 balanteena waxaa waaye waa ballot boxaga xisbigeennana waxaa waaye Tukuma EFP halkaasaan isku ognay. way Xasan hay bismillah halaan rabaa inaan ku noqdo horta annaga Soomaali xeer baan leenahay xeerkii Soomaalina odiga xaafadda ayaa asaga maamusho ilmahana wax waalidkooda tuso inuu raaca fiican meel odi laga aadi karo ma jirto. Soomaalina ugaas dhaqmeed bay qabaan aboobtu aboob intaas arrin horaan waxaad u maleysaa maad u aragtaa inuu hal ruux oo siyaasad leh 20 sano 30 sano asaga leh ku jiro oo waxaad u maleysaa gurigiis ama xoolahiisa u dhacay inay tahay horta odayaasheed oo ugaas dhaqmeedka beel ay yihiinba 100% ayay u mahadsan yihiin. aad baad abaalaan ugu qabnaa oo nimankaas kolonigood iyo dhibkooda gacanta naga soo saareen horta mid wayta tan labeed ninkan hadda la yiraahdo Xasan Nuur Xasan oo hadda governor 2017 aan rajeysanahay nin walba horta roob haduu soo daliil iyo mfani ma wingu ay tirada Soomaaliyeed
wuxuu soo wado daliilkiisa waana tusay waxa weligeena mas-uul Mandera County aan ka dareemin beel uu yahay ba ka imaadaan ka dareemin aan ka dareenay ninkan waa ninkii Rift Valley dhan dagaalkii kuuyo iyo kale injiin ka socdo dhalinyarada nidaam u sameeyay oo dhalinyaradii dagaal siyaasadda gelinayaan ka hoos qabtay oo nidaam u sameeyay kullay haddana ballantiis iyo waxyaalaha ka soo dhawaaqa waa arkayna annagana inaan ku sii adkeysano inaan asaga garab taagnaano asaga meesha geeyno hadda waajibka annaguna saaran yahay sidaan meesha u geeyni lahayn markuu soo galo asagana waajibkiis noo qaban doono meena qof weligiis ninkan waa nin administrator intaasna soo watay Mandera County waxay u baahan tahay administrator iyo nin wax the full manager we need manager tan kale meena nin darawal ani amala aniga gaari aan hoos ku kaxeeya ninka saaxiibkay hadda saarana waa nin diyaarad kor u wado taas dawladdu lagu kaxeynaya ama lagu wado Mandera haduu ka soo baxo dawladda dhan Mandera way ka soo guurtaa Nairobi bay timaadaa markuu noqotaa marka waxaas inaan ka tala baxno dadka shaqada yaqaano inaan u dhiibano aan la xisaabtamno sanadkiisa Xasan Siiro isagoo leh waa nin wax garad ah oo hadana odayaashii nidaam kulli ka wada dambeeyo nidaamkeen Mandera waa 5 sano inay gudbaan aniga adigana berito wax waa baranay meel baa u baahanahay saan ugu soo gal lahayn hadda hal mid ugu dambeeyo reer firfirsa oo Mandera joogo waxaan idin leenahay waqtigii faraashkiina isku xiran lahaydeen waqtigii joodarigii iyo baagiin hore u qaadan lahaydeen baa la taagan yahay maca salaama idin leeyahay intaadna soo dhacdeen aad naga aruursateen ha idin deeqdo wax kale iyo dhacitaan kale waqti idin ma hayno maca salaama saas duudub nagu dhaafaan leeyahay aad ma san tahay Cali Nuur Xasan oo ah gudoomiyaha ku meel gaarka ismaamulka Mandera iyo gaar ahaan dhinaca dhalinyarada iyo waliba sidoo kale Xasan Nuur Xasan oo dhanka dhaqaalaha u qaabilsan iyo waliba sidoo kale Cabdiwaa Maxamed oo ah gudoomiyaha ku xigeenka ee dhanka ku meel gaarka ay ahaayeen oo barnaamijka bandhiga caawa martiin oo anigu Maxamed Cibaar waan idin la socodsiinay Axmed Yuusuf aan u mahad celinaya dhinaca kamarada injineer Cabdixakiin iyo waliba sidoo kale Emmanuel Nando oo dhanka farsamada ahaana sidoo kale iyaguna mactaniya kulantideena dambe amaan Allah